Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, oo socday sanadihii 1914 ilaa 1918, wuxuu dunida u soo bandhigay argagaxa dagaalada qulqulka iyo tignoolajiyada halista ah sida gaaska sunta ah iyo taangiyada. Natiijadu waxay ahayd xasuuqii ugu foosha xumaa ee abid dunida soo mara, iyadoo in ka badan 16 milyan oo shaqaale milatari iyo rayidba ay ku naf waayeen dagaalkaasi. Waxay sidoo kale wax weyn ka beddeshay khariidadda, taasoo horseeday burburka dhul ballaadhsigii Austria-Hungary, Cusmaaniyiintii iyo boqortooyadii Ruushka ee jirtay qarniyo badan, iyo samaysashada dalal cusub oo booskooda buuxiya. Muddo dheer kadib, toogashadii ugu dambeysay ayaa la riday, qalalaasaha siyaasadeed iyo kacdoonkii bulshada ayaa sii socday, aakhirkiina wuxuu horseeday khilaaf kale oo caalami ah oo xitaa ka weyn kana dhiig badan 20 sano kadib. Dhacdadii kicisay kicinta dagaalkii Koowaad ee Adduunka, dhaxal sugaha boqortooyada Austria-Hungary, Archduke Franz Ferdinand, sanadii 1914. Laakiin taariikhyahanadu waxay yiraahdeen dagaalkii Koowaad ee Adduunka dhab ahaantii wuxuu ahaa dhammaadka dhacdooyin tixane dheer ah oo soo taxanaa dabayaaqadii 1800. Jidka dagaalka waxaa ku jiray xisaab celin fara badan iyo ficillo u soo baxay cawaaqibyo lama filaan ah. Qofna si sax ah uma sheegi karo sababta ay u dhacday, ayaa sharaxaad ka bixinaya sheeko ku socota filimka socda Madxafka Dagaalkii Adduunka ee Koowaad ee Dunida iyo Xusuusta Magaalada Kansas City, taas oo noqon karta ugu dambeyn sharaxaadda ugu wanaagsan sababta ay u saameysay. Waa kuwana 8 dhacdooyin oo ka mid ah dagaalkii adduunka ee Koowaad waxaa horseeday. Lambar 1, Ruushka iyo Faransiiska labadaba oo lagu bahdilay dagaalkii Franco-Prussian ee 1870 ilaa 1871, waxay ka baqayeen awoodda sii kordhaysay ee Jarmalka oo horeyba xulufo ula samaystay Austria-Hungary iyo Talyaaniga. Marka labada ummadood waxay go'aansadeen inay ku midoobaan xoogagga ilaalinta labada dhinac. Sidoo kale waxay ahayd bilowgii waxa noqon doono dhinaca isbahaysiga Triple Entente waxa loo yaqaano dagaalkii Koowaad ee Adduunka. Maskaxdayda waxaa isku imaatinka Triple Entente ee marxaladaha isbahaysiga Faranso iyo Ruushka 1894, British iyo Faranso Cordella ee 1904, iyo Anglo-Russian Entente ee 1907 oo runtii adkeyd nidaamka diblomaasiyadeed. Heshiisyada sameeyay isbahaysigii ugu weynaa ee iska soo horjeedo ee dagaalka galay sanadkii 1914